ardaybaan ahayo ubaxii wadankaan ahayo ardaybaan ahayo ubaxii wadankaan ahayo waxaanu ordayaa dugsiyada waada waxaanu ordayaa dugsiyada waada waxaa loo yimid inaan idin dhiirigeliyo oo waxbarashada ku dadaashaan bini aadamku aqoontu ku koraa wax ku noqdaa meel ku gaadhaa ku horumaraa siyaasadda xisbiga wadani iyo anigoo musharaxina waxa weeye in waxbarashada kor loo qaado adeegeeda muwaadin kastaana uu helo waxbarasho bilaasha haddii alla ka dhigo wakti badan mar raba inaad ka qaado waxbarashada ku dadaala aqoonta ku dadaala akhriska ku dadaala ciyaaraha ku dadaala isboortiga haddii alla yidhaahdo oo waktigiinu habayacina haddii alla yidhaahdo waxaa kaloo muhiima ardayga in messagekana aynu ku daro insha allahu inuu aqoonta dalkiisa barto ama waxaa loo yaqaano civic educationka dalkiisu inuu barto oo juqraafigiisa barto oo taariikhdiisa barto oo halgamayaashiisa barto ayaa loo baahan yahay ardayda insha allahu haddaan waxaan ku xoojin doonaa manhajka in arrintaana lagu barto aada iyo aad baa mahadsan tihiin السلام عليكم waan soo booqday si aan u arko waxbarashadu siday u socoto waxaan ahaan jiray macallin beri hore waxaan maanta xiisaynaya inaan macallin noqon lahaa mar labaad insha allahu haddii aan macallin noqon lahaa maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idiin dhigo maadada la yidhaahdo waxbarashada wadaniyadda ama wadan jacaylka ardaybaan ahayo iftinkii arooryaan ahayo waxaanu ordayaa maadadan dalalka dunida oo dhan waa loo dhigaa ardayda waana maado ku saabsan ardaygu inuu ogaado dalkiisa oo uu barto taariikhdiisa oo uu barto juqraafigiisa insha allahu hadday manhajka somaliland ku jirtana waxaanu jecelnahay inaanu sii xoojinno haddii aanu doorashada ku guulaysano haddaanay ku jirinna in lagu soo daro insha allahu waxaanu jecellahay idinkoo waxbarashadiinana baranaya inaad dalkiina iyo jacaylka dalkiinana barataan wadaniyaddu ma aha in qofka madaxda daacad loo noqdo ama aniga daacad lee noqdo ama madaxweyne hadda joogo daacad loo noqdo laakiin wadaniyaddu waxa weeye in dalka daacad loo noqdo معن سؤال haye مشرح ما معنى كي كسب بلابنتي حتاريتا أميل بحنمدا سومالنا somaliland berigii hore inagu xoolo dhaqataynu ahaan jirtay laakiin xadaaradda casriga ahi waxay ka soo bilaabantay xeebaha somaliland meelaha ugu caansanaa waxaa ka mid ah saylac bullaxaar berbera maydh iyo xiis iyo magaalooyin xeebeedka somaliland halkaasay magaalooyinkii hore ka soo bilaabmeen kadibna magaalooyinkan ay hargeysa ka mid tahay iyo burca iyo booramayo baa samaysmay insha allah inta kalena taariikhda ku dhigan doontaan